wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada ay jamhuuriyadda Somaliland ayaa saaka tababar ujeedadiisu tahay sidii looga faa'iideysan lahaa qashinka waxa ay ku qabatay magaalada Berbera kulankan oo ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiinta dawladda hoose qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada Berbera ayaa ugu horeyn waxa faahfaahin ka bixiyay tababarkan iyo waxa uu daaran yahay agaasimaha guud ee wasaaraddaasi Cabdikariin Aadan Cadde qashinka siyaasadda maareynta qashinka ee heer qaran waxaanu ka hadlaynaa waa qashin markaynu qashin ka hadlayno wasaaradda diinta iyo awqaafta iyo culimada ayaa ka hadli doona doorka nadaafadda iyo qashin iska hagaajinta ee diinta islaamka ka taagan tahay oo runtii deedaaf dhabar nolosheena u ah wasaaradda caafimaadka iyo isduwayaasha iyo isduwayaheeda iyo saraakiisha ayaa ka hadli doona waxa sayniska casriga iyo nolosha casriga ay ka leedahay iyo dhakhtarnimadu marka labada la isu geeyo waxaanu fahmaynaa qashinku inuu khatar ku yahay nolosha bini'aadanka waxa kale laakiin oo doonayna in halkan aynu ka xusno inagu maanta qashin baynu la legdamaynaa waynu ururina waa la goraa deetana god baa la geeyaa waa la gubaa dawladda kalena waa la kala iibsadaa qashinka oo waxa weeyaan isaga lacag ah marka halkan ku socono waxa weeyaan haddii aynaan siyaasad qaran oo qeexan oo ballaaran kala ahayn sida loo maamulayo ama loo maareynayo dee weligeed baynu gubayn iyadoo dowladaha hoose ee dalka oo dhan si fiican u shaqaynayaan magaalada Berbera waa magaalada kaliya baan u malaynayaa toddobada cishaba qashinka laga qaado xaafadaha iyo meheradaha marka waxay iskaayo tustay in dowladda hoose madaxdeeda iyo halwadeenadeeda iyo dadweynaha reer Berbera ay uga furfuran yihiin maareynta qashinka gobolada iyo degmooyinka kale oo uga xog badan yihiin labada sababood baa culayska badan keenay in Berbera la yimaado waxaan inteena dhammaan isugu nimi waxaynu nahay daneeyayaashii qashinka inteena halkan joogta waa intii wax ka oran lahayd haddii inuu cid wax ka oranayso sida qashinka loo maareynayo ama loo maamulayo waa run waxa hawsha isku dubreedaya khubaro u aqoon leh oo gacanta ku haysa laakiin khubarada iyo aqoon-yahanadu xog bay ku shaqeeyaan ciiday xogta ka helayeen waa inteena halkan joogta waxaan rajaynaynaa in participationkeena ama ka qaybgalkeena labada cisho ee soo socday maanta iyo berito ay noqoto ka qaybgal buuxa oo dhammaystiran oo waxa weeyaan hay'ad kasta ama wasaarad kasta ama cid kasta oo halkan joogta ay si buuxda uga qayb qaadato intaasi kadibna xogayaha dawladda hoose Suhayb Maxamed Cali Nuur Cabdi Jaamac Nuur Cadde ayaa iyaguna si diiran u soo dhaweeyay waxaana sheegeen inay ka faa'iideysan doonaan tababarkan oo laga heli doono in qashinka mar labaad dib looga faa'iideysto ama kulankan wada tashiga ah ee lagu dejinayo siyaasadda maareynta qashinka magaalada waa mid ahmiyadiisa leh oo taabanaya nolosha bini'aadanku maalinba maalinta ka dambaysa wuxuu ku sii siqayaa nihaayadii caalamka waxaanu laasanayaa mawaaridii dabiiciga ahayd ee Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu dhigay adduunka uu dhigay marka taa laga yimaado cunsurka bini'aadanku marka la eego waa takhriib ama inuu wixii dabiiciga ahaa dabiicigii ka bedelo oo muxuu ahaay isbedel ku sameeyo taasoo sababaysa muxuu ahaayay in cimiladii deegaankiisii muxuu ahaayay uu bedelmo marka si aynu u sii riiq dheeraano nolosha deegaanka iyo balaanadkan aynu saaranahayna ay u sii muxuu ahaayay dheeraato in aynu samayno ku talagal aynu kaga sii gaashaamanayno nihaayadii nagu soo degdegaysay inaynu si yara fidino annagu ka dowlad hoose ahaan annagu ugu mahad celinaynaa wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada workshopkan ay soo diyaarisay isla markaana ay noo guriyo keentay waxaanu noqonaynaa kuwa ugu horeeya ka faa'iideysta ka soo qaybgalayaashana waxaan ku boorinayaa oo dowladda hoose ugu muhiimsan tahay inaan ka faa'iideysano isla markaana aan dabaqno runtii khashinku sidaynu ognahay adduunyada waa laga faa'iideystaa halka inaga uu dhib nagu hayo iyo fayo dhowr xumo adduunyada kalena waa laga faa'iideystaa visionkeena iyo aragtideena waxa weeyaan in khashinka maanta dhibka inagu haya fayo xumada inagu haya bil xumada inagu haya sidii aan uga faa'iideysan lahayn oo bal aynu maaragtay ugu bedelan lahayn wax ina anfaca intaasi kadibna barasaabka gobolka Saaxil Dr. Axmed Maxamed Xaashi ayaa isagu soo dhaweeyay in daafurkan maanta sidii qashinka looga faa'iideysan lahaa ay mid horumar keenta ay noqon karto maanta intaas oo aqoon-yahan iyo intaas oo laamooda dawladda kamida ay isugu yimaadeen muhiimadiisa ay leedahay waxaynu dejinaynaa ee laga wada hadlayaa ee halka lagu la faguri doonaa labada cisho ee uu socdo hadii la hayraa waxa la doonayaa inaad u dhawaaragtaan inaad maskaxdiinana tuujisaan siyaasadda maanta halka laga sheegay ee ujeedada kulankeenu yahay ee lagu dejinayo siyaasadii lagu maamul lahaa qashinka
ayaa la doonayaa inay maxsuul fiican ka soo baxo haddii la yidhaa iyadoo la iskaashanayo oo nin walba eegayo wixii uu xog hayo qashinku wuxuu yahay runtii waxyaabaha bulshada dhibaatada badan ku haya markuu qoyan yahay iyo markuu qalalan yahayna wuu kala dhibaato fara badan yahay oo markuu qoyan yahay baa dhibaato badan qashinka guud ahaanna waxa la doonayaa inaynu siyaasad ka yeelano oo la isku muguuriyo Yaasiin Jaamac Ali telefishinka caalamiga ah ee Bulsha TV magaalada Berbera.